السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم يا مركلة شاليال وبرنامجنا عالم تكنولوجيا وما أنت أنا إذا وضع دور برنامج وأنا نفسي وحبدين كبدلي أنا إذن كان إسلاي حي وحبدين أيد كقرصان دانتان سؤالها كلوريه روح كان لجرني جوجل شركة بدر الله من نوع كلا دول لكن بريها تنبأ AI يحرك كلا دول بصوب حياة لكن سه كأزاري هان البرنامج كان كنت حنتهين سامين انتين لأج أي وحن المال والبكهد له عملي أهان يا براكتيكال أهان أي أساميان إنتين لأج أي برنامج كان ديار جروج سقيب كيهين تكنولوجيا أمان كذا كحل إنه برنامج كان حتى أديك دعوة إنسان قاب كي أي برنامج نوع إنتان أديك سدو بعد ديارين تيس إذن سوق بيا كل إذن لم وذاك كره وقت بنا يقعدون إسا مقال كل حلقة كل وطل قلنا أي كهل دونا لكن دور برنامج أكو كومن oo runtii barnaamijyada inay idin soo gudbidinka qayb weyn iyo kaalin weyn oo lixaad la kale ayaan la wadaagi doonaa dabcan muuqaalada intaan idin soo gudbin ka hor jikada ayaan galaa wax badan ayaan soo diyaariyaa wax badan ayaan isku soo dabaridaa meesha aan ku diyaarsado muuqaaladaas qoraaladooda iyo referenceska iyo ilaha iyo wax walba adeegsanayo application ay isleedahay shirkadda Google oo loo yaqaan Google Docs ayaan adeegsadaa Google Docs sida hadda halkan idinkaga muuqata dhammaan xalqadihii gudbay oo dhan halkan ayaan ku diyaariyay sida idin muuqato kulligood yani 1 2 3 aad arkartaan 1 2 3 4 hal ayad arkartaan yani application kan arkaysaan yani meesha ka isticmaali lahaa Microsoft Word iyo mid kale lamida kan ayaan adeegsadaa fursadda iyo chance-ku isiinayo oo kaga duwan yahay ku doobax kala maahan hadda computer-kayga ka soo tagay oo halkan jooga ayaan halkan ka akhrisan karaa waxbaan uga darsan karaa waxbaan ku diyaadin karaa anigoo banaanka maray hadii fikrad igu soo dhacday xitaa halkan ay ziyaadin karaa hadii computerku iga damo ama wax kala soo gaaraan ama aan dhex maray qoraalka internetka iga tagana halkan ay kala soconaya hal iyo laba tusaale hadaan furno hadda xalqadii ugu dambeeyay tusaalahan xalqadii 32 sida halkan idinkaga muuqata dilaaga casriga ah dabcan ciwaanka aad ka arkaysan YouTube-ka iyo Facebook-ka dib iska bedeli karaan laakiin hadda halkan waxa idinkaga muuqata taariikhdan muuqaalka diyaariyay taariikhda la duubay iyo mawduuc xaaladda ku jira muuqaalka su'aalahan oo xaaladdiisa waa kan publisher miya mal record gareeyay suu yahay marka anu muuqaalka la faafiyo la sii daayo publisher ayaa halkan ka dhaca saaxiibkii editor-ka ah halkan ayuu kala socon karaa dhammaan linkiskii iyo ilahan adeegsanayo mataqaan meelaha ka soo xiganayo dhan halkan kala soconaya sida fudud ayaan u soo diyaariyaa yani telefonkaas ayaan kala socon karaa barnaamijka waxaas ii fududeeya oo waxa dhan ii sameynaya dhammaantiis waxaan loo yaqaanaa Google Docs kan oo kaliya maahan waxbarashadayda shaqooyinkay kala kulligood mid aan u adeegsado weeyaan runtiina saameyn weyn oo aad u wanaagsan ku leh marka Charlie haddii aad tahay dad aan oo kala ah barnaamijyo kala duwan diyaariya ama dib ku qaba mar walba oo inuu maqaayad tago internet raadsado oo wifi lagu xiriiriyo oo computer ku qorto barnaamijkan kala adeegsan kartaa yani su'aalahan hadda waxa idin tusay oo kaliya sida kuwii hore ay diyaarsanaayeen su'aalaha hadda mid cusub hadaan rabo inaan diyaariyo meesha hoose ku dhufan tahay blast ayaan ku dhufanaya wuxuu leeyahay template diyaarsanaa oo su'aalahan oo mid oo CV loogu talagalay mid loogu talagalay waraaq codsiya miyaad rabtaa mise mid cusub ani badanaa mid cusub ayaan doortaa markaas oo doorto magaca oo la baxaya waxaan su'aalahan oo kale xalqadeen xigta waxaan kaga hadli karnaa oo kale la hadalka xayawaanaadka baan dhahayaa ku si dheeraan mahayo create baan leeyahay create oo meel cusub ay furmayso waxaan doonaa qori karaa marka ya qoraalka kood markaan qor hadda su'aalahan kan ciwaan baan ka rabaa double click ayaan leeyahay waan wada dooranaya meesha bid hoos ku taal capital oo bold markaan doorto bold ayu qoraalka noqonaya haddaan ka soo dego hoos imaado boldigan ka qaado wax kale ayaan qori karaa caadiyan waan ka degayaa mid kale aan qorayaa waan ka degayaa mid kale aan qorayaa haddaan rabo kulligood inay ii noqdaan tiro inaan u yeelo haddaan rabo ka horreeyaan dooranaya haddaan xaggan doorto gooni ayuu ka dhigayaa tiro caadi u bedeli karaa kan ku xiga intaan dib u celiyo ayaan back dhigi karaa kan ku xiga sidoo kale tan dib u celiyo ayaan dhahayaa tira ay safan waxa kada bamsa saas isiyaab ka badan oo kala duwan haddaan rabo mid ka mid inaan tan doorto ayaa eedaan balaas hoosta ku leh tan doorto baa qaabkan doon u bedelin karaa fortan bedeli karaa cabirkeeda ya fontigan bedeli karaa noocyo kala duwan baan dooran karaa su'aalahan aan doorano Comic Sans hore aan ka soo hadalnay inay ka mid tahay faraha lagu necab yahay design-ka saan ogto faraha inay tahay laga dheeraada ay tahay oo kale haddaan mar kale doorto colorka fartan bedelin karaa waxa ka dhigi karaa jaalle waxa ka dhigi karaa noocan doona oo bedeli karaa waxaan highlight-kan ka qaadi karaa oo zero aan dhigi karaa waxa kada saasi si badan ayuu ku adeegsadaa Google Docs runtii barnaamijkan soo gudbinayo qayb weyn ayuu ka yahay runtiina waa mid aad aniga shakhsiyan iyo anfaca xalqadaha waxa aan kugu soo gudbinayo oo maanta halkan idin kula wadaagayo
barnaamijyada waa kulli gebi ahaan kuwa aan azhari ahaan adeegsado runtiina aad ii anfacay idinkana maybe haddaad danaynaysaan aan jeclaan in la wadaago haddaba kaas keni koowaad ayuu ahaa hadda waxaan idiin soo sheegay markaan xogtii soo qoranay meeshaan ku diyaarsaday oo taleefankan ku adeegsan karo laakiin se xogtaan meesha aan kasoo ugaarsanayo markaan raadinayo mawduucyada ka mid ah su'aalahaan oo kale haddaan rabo google inaan galo oo iraahdo tech news oo kale haddaan diyaar dhaho wuxuu isoo saaraya website kala duwan linkiyo kala duwan website ugu caansan The Verge, Reuters, Wired iyo kuwo kaloo badan ayuu isoo saaraya aniga taa mas'uuliyaddeedu inaan hal u galo hal u soo fiiriyo mid kasta gudihiisa galo markaan gudihiisa galo ku dhufto arko su'aalaha xogta ugu soo horeyso kale PC Games ku sii dhufto famsa aan gudaha u galo hal u akhriyo xogtaan maxaa la yiri ka maxaa la yiri xog badan iga baahan yahay haddana waa hal link ba ilaa hadda booqda waa in haddana ka laabto oo link kala gala oo haddana ka sii laabtaa oo mid kala sii gala aan saa ku socdaa waarar kala kaas kala yani xogtaas inaan hal mawduuc diyaariyo waxa laga yaabaa inuu qaato saacado fara badan laakiin haddaan ka war aan degdegsanahay ka war haddii aan rabin inaan saas dhan aanan ugu sii dheeraan oo aan rabin inaan ku sii fogaado haddaba application kale isticmaalo aslan application ma ahan waa website weeyaan website-kaasi application ahaan uu leeyahay sida Google hadda apps ahaan ugu jiro as app ugu jiro telefonka ayuu u yahay waa shirkad loo yaqaan Perplexity hadiyan perplex Englishka waa confusion in wax ku wareertid marka confusion kiyo shaqo ka dhigteen hadiyan Google waa search engine weeyaan meesha wax laga raadiyo waa muxarrik baxth waa motor wax laga baaro ayagu waxay dhaheen waxaanu nahay search answer meesha jawaabta laga raadiyo tusaale ahaan kale sidii hadda ugu dambeysay oo kale isla ereyga waxaan gelinayaa tech news aan gelinayaa tech news markaan gelin muxuu samayn doonaa ama sida aragno tech news markaan geliyay isla sidoo kale xogtii uu soo saar laakiin xogta markaa way ka duwan tahay sidoo hore asaga website-dada dhan aan hadda soo arkaynay tusaale hadda meeshaan ku dhufano Wired-kii ku jiraan The Verge ku jirtaa Reuters ku jirtaa inta hadda halkan ku soo aragnay ya halka inta ku soo aragnay Google hadda inta meeshaan ku safan ayaa halkan haddana safan same way ayaa halkan safan ayaguna sidoo kale same weeyaan laakiin se intuu website-da dhan ii booqday oo kulligood soo akhriyay ayuu soo koobay xogtii oo kooban ayaa halkaa ka akhrisanaya yacni wuxuu soo saaray Motorola inay telefoonka tala soo saartay Apple oo sharciyad loo haysto mataqaana maxkamadda lagu furay telefoonka kale oo Realme ay soo saareen iyo waxyaalo badan ay Call of Duty oo game ah oo kale su'aalahan oo kale oo soo kooban sidaas si la mid ah ayuu mataqaana aan u adeegsadaa application-kan oo waxa weeyaan xogta markaan geliyo si degdeg ah ay soo saarayaan yani booski intaan Google booqday iyo website-da la midka ah aan xogta baaro aan hal u soo akhrinaa asaasi degdeg igu sameeyay su'aalahan kale xogta ugu dambeysay aan baarnay su'aalahan kale waxaan ka hadlayay mawduucina hore waxaan kaga hadlay SpaceX waxay soo saartay haddaan dhahno SpaceX Let's News xogta ugu dambeysay SpaceX ka soo kortay wuxuu noo sheegi doonaa inay launch gareeyeen ama cirka u direen Starship mashruucoodii ahaa waxyaalo badan la mid ah ka waran marka Soomaali ma ku heli karaa haddaan translate into Somali haddaan dhaho afwan translate into Somali Somali ugu tarjun haddaan dhaho ma soo saari doonaa dabcan wuu soo saaraya laakiin si ChatGPT kula midka ma gaarsiisna anu hadda version-ka isticmaalay waa version-ka free-ga ah waa midka yacni dadka markii maxayd imaan tusaalahaan cunada ma keen shaabal qaadan dhami inta yarta dhami oo kaltii la dhihi jiray way laakiin se haddii aan su'aalahan haddaan dhaho mar la hadda rewrite dib u qor wax ii soo saaraya kuwa kala duwan the pro search ayaa jirta yani haddaan gadan lahaa midda sareysa oo lacag aan bixin lahaa wax ii samayn karaa more accurate and through search inuu xog si saxsan oo si tafarucaad leh oo qoto dheer inuu si awood u leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay ChatGPT-4 ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay shirkado badan oo uu ka mid yahay Gemini iyo kuwa la mid ah ee la mid yihiin kulligood uu ku dhisan yahay su'aalahan ka Soomaaliya hadda bedel markaan niri wuxuu soo saaray SpaceX waxaa soo gaaray kooxaha ugu muhiimsan ee ay ku qabatay furaha ugu dheer ee rocket-ka Starship yani waa Soomaali la fahmi karo laakiin 40% 30% jajaban oo yani naxwo ahaan iyo af aqoon ahaan aan isnayn laakiin se ugaran xog baa kaaga baxaysa uu leeyahay sidoo kale xitaa wuxuu igu tarjumi karaa carabi igu tarjuma dhigi karaa isla xogtan aragna wuxuu soo saari doona aragna wuu soo tarjuma SpaceX أطول رحلة يعني حققت مؤخرا إنجاز كبيرا من خلال إجراء أول رحلة مما يشكل اختبار الثالث يعني تجارب صدق حدا يسكت دين بله ولحتى عربي اسمه فدي حقا وسلا دافسيات سؤالك سبيس إكس إنجليشان دين عيسيو جي دين عنا الربي إنكو صاب بلعب أو كسمة لكن س إنجليش أنا يانكو إذا يكسدا حقتي عربي سيد ودخسها بالنيد
ayay igu soo dedejiyaan runtiina waqti badan oo aan ku geli lahaa Google iyo kuwa badan oo la mid ah ku soo baari lahaa ayuu si fudud igu fududeeyaa haddaba jaalayaal kaasna waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican applicationada aniga barnaamijkan hadda idin soo gudbinayo qayb weyn ka qaata yani diyaar garowgooda iyo soo diyaarintooda ayay ka mid tahay idinkana idan ka faa'iideysanaysan ayaan rajeynaya haddaba jaalayaal barnaamijkeena xiga waxa weeyaan dabcan ChatGPT waliba kan isticmaal hadda waa 4 waa midka premium kan adeegsanaya kan wuxuu tusaale igu siinaya kala sawir inaan geliyo meesha hadda hoos ku qoran oo kale inaan ka sawir ku dhufto oo dhaho waxa hadda ku muuqda maxay iga sheegi kartaa inaan file soo geliyo fileka ii akhri dhaho iyo wax badan oo la mid tusaale ahaan hadda idinka u jeeda hadda halkan agteeda waxa ku yaala meesha wax ku duubayna weeyaan ama hadda kan iga koreeyo waa leerkan aan ku dhufanaya maraan ku dhufto meeshan waxaan dhihi doonaa next ayaan dhahayaa ma garateen waxaan dhahayaa ii fasir tell me about this photo sawirkan kuu muuqda bal wax iga sheeg muxuu yahay baan dhahaynaa muxuu noo soo saari doonaa talow aan aragna bal hadduu ka shaqaynaya yani kaliya te maaha inaan qoraal weydiin karo ma ahan oo kaliya inaan file ku upload garayn karo laakiin sawirka ii muuqda intaan dhaho tus ayaa ii sheegi karaa wax ka soo baxaya su'aalaha halka hadda uu sheegay sawirkan waxaa ka muuqda professional softbox lighting setup yani waa professional lighting setup leerka loo isticmaalo oo wax lagu duubo oo professional weeyaan uu leeyahay waxay u muuqataa in loo adeegsado photography iyo videography iyo waxa la mid ah kasoo qaad ma baqaan English aniga waxaan dhahayaa saaxiib translate into Somali igu fasir haddaan dhaho muxuu dhihi doonaa kan uu kaga fiican yahay perplexity marka loo fiiriyo Soomaaliga ka hadalkiisa uu kaga fiican yahay sababtoo wax kale maahan language ku dhisan yahay moralka ku dhisan yahay asaga ah midka originalka yani perplexity waxa loo isticmaal dhagxanta ku dhisan mid kamid ah ayaaba kan ah okay wuxuu noo soo saaray sawirkan wuxuu muujinayaa qalab iftiin softbox ah oo xirfadle ah oo loo isticmaalo sawir qaadista ama duubista fiidiyoyaasha si loo hubiyo in iftiinka si siman oo jilicsan loogu qaybiyo mawduuca يعني موضوع كذا object وكفسر يعني قف كلا ضوي يعني runtii waa wax detail aad muhiim u ah softbox wuxuu leer kale kaga duwan yahay in iftiin jilicsan buu soo ku fasira light uu ka wada yani iftiin khafiif oo aad u cuslayn oo kale inuu qof ku dhaco ay fududeynaya iyo wax badan oo la mid ah yani kan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu badan oo runtii aad u adeegsado iyo kuwa la midka ah su'aalahan kale wuxuu leeyahay daal uu leeyahay oo dhihi karo ii sawir taqaana generate haddaan dhaho ya generate Somali cameraman صور nin Soomaali oo cameraman waa oray degdeg aan iska galiyay laakiin markastoo promptiga qoraysid ay tahay detailed ah ku dartay sharaxaad dheeraad ah si hagaajisid waa markasta oo sawirka uu ku siinay asaguna mid qurxoon oo ka raadinaysa mid u dhow ku siiyo hadda wuu wadaa creating image ayuu leeyahay aan aragno wuxuu soo wado sida idin muuqato wuxuu soo saaray nin Soomaali ah dama Soomaali ahaan u eg koofiyad xiran meel khudaar la taagan mataqaana go'shaal oo kala nooc oo kala midab badan wata mid ku xigana uu si kala bedel asagoo wax ku duubaya hadda wax sawiraya iyo asagoo mataqaana kamarada gacanta ku haysta oo qof kala sawiray fiirinaya dadka gadaal ka muuqda dadkii wada dad Soomaali wada egyihiin waa wax taleefka gacanta ku wadatid wax badan runtii ka bedel noloshaada aniga wax badan ayuu qabtaa shaqooyin kala duwan qabto iyo barnaamijka naftiisa qayb weyn ayuu ka qaataa haddaba jaalayaal kaasna wuxuu ahaa barnaamij kale oo runtii aniga wax badan ka bedelay barnaamijkayga iyo kuwa la midka ah isleeyahay idinkuna waad ka faa'iidi kartaan keena xiga waxa weeyaan isla Google mid kale leedahay oo loo yaqaan Google Keep wuxuu chance ii siiyaa adeegyo kala duwan inaan ku samaysto su'aal halka meesha idinkaga muuqata October 16 adeegan ayaan soo gatay sida idinkaga muuqata waa Kiviba u koreeya dabcan Kiviga waan waayay ka micnata maadaama tig saaran kuwii kale soo gatay kulli meesha ku jiraan dooro waxa la kala luqad kale ku qoran yihiin su'aalaha karota ku jirta kuwa Soomaali xataa war hadin karnaa waa kan laftigooda waa saliid baan raadinayay mandalina raadinay waxa la mid ah yani waxa ii suurta galaysa qofka adeeg ii soo diray in uu mataqaana si fudud intuu list soo sameeyo listiga waa kan waxaan leeyahay adeeg ayuu bixinayaa adeeg XYZ aan dhahayaa ciwaanka ayaan qorayaa meeshaan wax ka soo ran check boxes waa dooranaya kan haddana mid kana dooranaya haddana mid kale gelinayaa midkii hadhowta ii soo baxa oo aan shaqada qabsado haddaan tig saaro hoos ayuu u dejinayaa ka ku xiga haddaan helo soo ahaan kale midka labaad haddaan tig saaro hoos igu dejinayaa yani shaqada qaab wax ii fulay waxaan ii fulin intaba oo ii sameynaya tusaale ahaan kale haddaan rabo shaqada qof kale inaan u diro inta qaybta hoose taabto kale ayaan dhihi karaa collaborate qof kale ayaan gelin karaa qof kale ayaan u diri karaa oo meesha haddaan geliyo tusaale ahaan kale automatican qofkaas notification ayaa u dhacaysa listigan uu soo baxaya sidaas ayuuna
ku qabsan karaa marka runtii haddaan diyaarnay xitaa barnaamijyadan iyo barnaamijyo lamid iyo haddaan nolosha wax kala samaysanayo kale to-do listiga ugu fiican oo computerkana ku adeegsan karo telefoon ku adeegsan karo si joogtaan u isticmaalo kan weeyaan dhabtii marka waxaan isleeyahay qudhiinu haddii adeegsataan jaalaya barnaamijkan Google Keep loo yaqaano dhabtii idinka laftigiina saameyn ayuu ku yeelan karaa ama haddaad tahay qof application yar yar oo ka daba wareega kan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu fiican oo aas oran wax badan ay ka kororsan kartaa jaalayaal mid ka xiga waxaa loo yaqaanaa Google Authenticator yani waxaan ognahay markasta waxaan ka hadalnaa security-ga iyo in xogta la ilaashada iyo kuwa la mid ah barnaamijka wuxuu ku fududeynayaa qof intuu helo email-kaaga iyo password-ka intuu helo inuu geli waayo haddana meeshaadii wax kale maahan waxaa jira wax loo yaqaan Google Authenticator ama shirkado kale weyn Authenticator baa loo yaqaan ama waxa loo yaqaan 2FA two factor authentication yani waa isbaarada ama controlka labaad ayaa loo yaqaan yani hadda say meeshan kaga muuqata Facebook hadday noqoto hadday YouTube noqoto hadday barnaamijyada kala noqoto kulli 90% waxaan isticmaalaa barnaamijkan wax kale maahan email-kii ay ugu rakibeen haddaan telefoon ka baxo telefoon ka galo kulli way soo baxayaan taa waxay fududeynaysaa koodad aan meel waraaqada ku qori lahaa ama email ku save karin lahaa si fudud inaan halkan wala socdo runtiina qayb badan oo runtii kaalin xal leh ayuu ka qaatay idinkana waxaan is leeyahay aad baan idin faacaya soo halkan markaad rabtiin aad ku dartid oo kale shirkad kale ku soo kudhanaysid website-kooda markaad booqatid ay ku dhahaan ku dar 2FA-ga waxay ku soo saarayaan QR code marka QR code markaan ku dhufto scan QR code markaan dhaho wuxuu ii soo saaray QR code-kan ku aadinaya marka ku aadiyo oo ku dhaco automatic kan saan oo isku diiwaan gelinaya sida hadda halkaan kaga muuqato kale saasna waxaa is leeyahay mid kale oo dhabti wax badan ka kororsan kartaan haddaba jaalayaal waa bil Ramadaan dabcan ayadoo wacdiga iyo dhikriga Ilaahay la xusuusin meesha kama maqnaa laakiinse waxaan horay u iri noloshayda iyo si joogto ku wanaagsan application-ka ugu dambeeya ugu muhiimsan waa application-ka loo yaqaan Gold Qur'an yani waan hubaa kulligin telefoonadiina waxa ay ugu jira applications Qur'aanka ah laakiin kan يعني تمنية كلا دوان أيام سوء أديك سدي يعني أنت تلفون سمارت فون أديك سنة كذا كلا دوان بان أديك سدي أو مثلا قرآن كأبليكيشن كسمية لكن قبل بروح نكون نعي إن ليهين حيسيس يحلم ذا مرة قارئ أيضا لهين إن صراحة بينك يقول هذا ربطنا خرجتي وكله إفتين كون زيادة هي أما مالت مركز شوكت وكله هبين هذي كوتون إفتين كريت أما باك جراوند كود واحد نوعيها وكله قول القرآن سائلين شيء وشاشة قروح بدن بقوليه وحيسيس أما لهن وحكو قرش شادي ما لهن يعني أبليكيشن وحيسيس كله وسمح كلام معهن سيدت كسمية العقو السمية لكن إلهي خير هالسيونين كسمية يضف تيم كسمية برامج كان ما لها سكاية العقو السمية لكن سوى أبليكيشن أما حيسيس كورة كمان إنه هاي رتمارة وأنا قصيفة وين أم كدورتي تاو حسير لما كسيتين كسجلوا كله باقريه كل دوام بندوران كرات سؤال هقول هبين بانكريه كرا هبين هدان دورتو كله سيتين كان جليا haddaan doorto su'aalaha midabkan haddaan kan doorto midab habeen haddaan ka dhigo kala wada mugdi u noqonaya tartiib saasaan u akhrisan karaa iyo saan rabo saan doonaan samayn karaa haddaan rabo inaan iska bedelo mid oo binki aan ka dhigan karaa xogaa yar indhaha roon waan bedelan karaa waxaan ka dhigan karaa caddaan ka dhigan karaa wada caddaan oo noqonaya yani waxaa jira musxafyadu kala duwan yihiin musxaf guduud ah musxaf baal caddaan ah musxafyo kala nooca weeyaan intaba runtii saameyn fiican ayuu leeyahay su'aalahan kan cagaar xigeenka ayuu leeyahay indhaha u roon xogaa qabowga ah يكون لمن وحتى كوسي دير إنه ليه صارت عمران بكتير وكل هذا إحنا وحيس صار محمود الحسري أي صار الشيخ محمود الحسري إلى آخره سي وح صار هانو كلا أن بدلن كرا علماء بدن كوا بدن صديق المنشاوي بكتير عبد الشسوف الشيخ يعني عالم كصومالي دا كتير يهو كوا بدن أي علم ميت كان كله فتو كاس أيام كداون كرا وحان ربو صدق كلو حليه هاي إن بدلن كرا إنه يسمين كرا تراكن أو weekly شيء كرو هدف تقصد أسبوع محاربة أنا أنت سجوس آخرية أنت سبيتين أنا آخرية ويصدرك الريمايندر أولي هاي أسبوع عمك الله في أسبوع عقارة أنت سين اللي جالس كبد الشيء وحاول سامن أنت اللي بعد سميسي marka loo fiiriyo xuskaaga quraanka dhigriga raatibkaaga asbuucan marka loo fiiriyo inta hadda ka hooseysa iyo kooban oo lamid ah marka jaalayaal intaas ayaan kusoo koobinaa waxaan aaminsanahay inaad ka kororsan doontaan insha Allah haddana bil Ramadaan maadaama lagu jiro waxaan isleeyahay productivity qofka muslimka inuu noqdo qof muthmira wax soo saar leh inuu noqdona waa mid aan marna meesha ka maqnayn waxaan isleeyahay wax ka faa'iideen khayr badan ma isku ognahay kuwaan iyo kuwa kale ka xiiso badan ku kulmin doono khayr aan isku ognahay marka la ka fakara assalamu alaykum